السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالكين محمد ديكو أصحابتنا لما نقول عصب وحن لنا هاي بليز جمركينا سوقاتا ما أنت لح فنان أيا دبك نصارن أصحابتنا هرن وحن لنا هاي آد أي أمهسنتين لأنتين ماشان متاجنان لهنن ما أنت وحا أما تايتل كسيدة أكوسو أركتي لح فنان أو فنك كوجل دراساتي runtii waxaan umaleynaa inaa isweydiinaysid yihiin inta taas laga gaarayo please waxaan ka codsanaynaa inaa gamarkaaga iyo shaahigaaga aad soo qaadatid shakadu way xiis badan tahay waa tahay waxaan umaleynaa diyaar inaa u tahay inaa ogaatid lixdan fanaan oo fanka ku guul dareysatay waa lix fanaan runtii aad iyo aad u jeceshihiin heesahoodana wada top ah balse way guul dareysteen mid ka mid ah idin soo qabto waa fanaankii Cabdiqaadir Kaskey runtii heeso waxaa lagu xasuustaa oo kabana ah heeso macaan ah qaraami ah balse fankii wuu ku guul dareystay fanka meel fiican uu ka gaaray balse dadka hore u sii socday ma aha oo dhax ayuu ku haray heestiisa ama heesihiisa qaraamiga ama kabanka mid ka mid ah ila dhageysta nafta armida hogaamiso waxa uu ka gubay waa aamuski nafta armida hogaamiso ma adkaysiba qofan looga dhigay iltiyo hoqdiyo ololaha jacay ma adkaysiba qofan looga dhigay iltiyo hoqdiyo ololaha jacay ma wabadaba qadayr baxdiyo waa fanaanka dadka ay wada jecel yihiin Kaskey fankii meel heer sare ah uu ka gaaray balse haddana waxaan leenahay wuu ku guul dareystay okay fanka runtii waxa waaye dadka waxay kaga jiraan dadna heesta ugu horeyso u qaraxdo dadna markay dhowr sano ay ku jiraan u qaraxdo marka laakiin Kaskey markuu soo galay iyo markuu ka baxayba ama marka la waynayba isugu mid ay ahaayeen heesihiiso dhan ma kala dhacaan wada top waxaan ku xigsanayaa oo runtii aad u jeceshihiin fankiisana dabcan waxaan umaleynaa albuno badan inuu soo saaray waagii albunada ay jireen laakiin hadda qof walba halaaleyso iska soo turtuurtaa waxaan qabsanayaa ama idin soo qabanayaa Cabdullaahi Boqol ay dadku u yaqaanaan Boqol muu u baahna faahfaahin dheer Boqol waa fanaanka wada taqaanaan fankiisa wuu ku guul dareystay meel heer sare ah marka uusan ka gaarin meesha uu ku dambeeyana ilaa iyo hadda lama yaqaano heestiisa ama heesihiisa mid ka mid ah ila dhageysta waa tahay waxaan umaleynaya Cabdullaahi Boqol in aan ku soo xasuusiyay runtii Cabdullaahi Boqol Mareykanka jooga
meel uu ku dambeeyo kadib Mareykanka lama yaqaano. heesihii ma dhaafay? We don't know. haddii adiga hadda daawanayo oo Cabdullaahi Boqol iyo Kaskey meesha ay ku dambeeyaan aa og tahay, please commentiga hoos noogu reeb, anaga la xiriiri doona. Okay, waxaan ku xigsanayaa ama idin soo qabanayaa waa 6 fanaan, 3 gabdho iyo 3 wiilal. marka waxaan israacsanayaa wiilasha 2 waa soo sheegay, midka saddexaad wiilasha Cali Ukun abo bisinka Cali Ukun waxaan u maleynayaa dadkan yaryar hadda soo baxay ma u maleynayaa inay yaqaanaan Cali Ukun, laakiin adiga hadda daawanaya laga yaabaa inaad taqaanid. Cali Ukun waa fanaan runtii heeso macaan badan leh, heesihiisana runtii waxay ku soo baxeen album. heesihiisa mid ka mid ah idin soo qabto. waa tahay waxaan u maleynayaa dhanka wiilasha way iga dhamaadeen. Kaskey, Boqol, Cali Ukun, 3 meel ay ku dambeeyaan ilaa iyo hadda lama oga. runtii codadkooda haddii qiimeen anaga aan ku sameyn Blue Star ahaan, codadkooda waa top. waa top. fanka guul ma ka gaareen? maya, ma aysan ka gaarin, laakiin bilawgooda runtii heesooyin qurux badan u godmay ee lahaayeen. waqtina waa dadka aad iyo aad u dhageysan jireen, balse hadda lama yaqaan meelay ku sugan yihiin ama hees ay soo qaadeenba. okay, aan ka gudbo. runtii waxaan u gudbayaa 3 gabdho oo aanan kala dhicin. midda ugu horeysa ay idin soo qabto Fartuun Cumar yaa yaqaan. hadday ka daran tahay. Fartuun Cumar runtii fanka ma aysan ka gaarin heer sare, dhex ayay kaga hartay. ana idin soo qabto heesaheeda mid ka mid ah. waa tahay Fartuun Cumar ayaa idin soo xasuusiyaan fila. Fartuun Cumar runtii cod halaasi ay lahayd, and we don't know meesha ay ku dambeyso. fanka bilawgeedu wuu fiicnaa, laakiin hadda adi ma aragta ani ma arkin waay. marka waxaan u maleynayaa haddii adiga haddana daawanayo oo og tahay meelashay ku dambeyso ama hees ay soo saartay aan anaga arkin, please commentiga noo reeb, anagaa la xiriiri doona Fartuun Cumar. marka fanaanadan aan ku xijinayo Fartuun Cumar waa fanaanad Deeqa Bilan. Deeqa Bilan runtii codkeeda wuxuu ahaa cod ka duwan codadka fanaaniinta gabdhaha, cod ka duwan ay leedahay. marka heesaheeda mid ka mid ah idin soo qabto. dalka caalan
واتهاي وحا ملينا فرتون عمر iyo deeqa bilan labadoodaba maanta waa idin soo xasuusinay deeqa bilan lama oga balse deeqa bilan heesihii way ku guul dareysatay aan filaa maxaa yeelay filmna u go'day oo filmaan ayay sameysaa short films ay sameysaa oo Mareykanka ah laakiin hees ma aysan soo qaadin hadday jiraan inay hees soo qaaday please commentiga noo reeb anaga ayaa deeqa bilan raadin doona waa tahay xabadda ugu dambeysa ama gabadha ugu dambeysa barnaamijkeena maanta yuu noqon doonaa intaan soo qaban qofka ugu dambeeya please haddii aad nagu cusub tahay adigoo meelaha iska marmarayna soo booqatay waan kaaga mahad celinaynaa nala joog oo ku baahannahay asxaabteena ayaad ka mid tahay hadda kadib please gambareelka furo subscribe noo saar mar walbana waxaan u baahannahay asxaabo cusub kuwa nala joogana waxaan leenahay aad ayaa u mahadsantihiin okay xabadda igu dambeysa ama gabadha igu dambeysa fanaanada ah waa Xamdi Queen codkeedu wuu fiicnaa Xamdi Queen markay soo galeysay dhankan iyo Somaliland ay kasoo gashay xidigaha geeska balse hadda meesha ay ku dambeyso cid taqaana ma jirto balse haddii ay jirto adiga haddana daawanaya aa og tahay meel ay ku sugan tahay ama warkeeda aa haysid please commentiga noogu reeb anaga ayaa la xiriiri doonaa haddana waxaa idin soo qabanayaa heesaheedii heesa ka mid ah mahigaaniyo sidii mayay mirtii keenay mayda maharo mahigaaniyo sidii mayay mirtii keenay mayda maharo dabasho waygu maxay utugaysidaan muquurtayo dabasho waygu maxay utugaysidaan muquurtayo umuuqday inaanan maarmaynine umuuqday inaanan maarmaynine ahay murugada jacayl ma hadho maankayga ku yeeshay meelha waa tahay waa fanaanada qaaliga ah codka halaasiga ah leh balse meesha ay ku dambeysa aan la ogeynin haddii adiga aad og tahay ama aad taqaanid ayada please linkiga hoos noo soo dhig anaga ayaa raadin doona haddii aad jeceshahay barnaamijka inaan sii wadno ama barnaamijyo kale aan keeno please waxaad noogu reebtaa commentiga hoos anaga ayaa akhrisan doona taladaadana fiirfiirin doona waa tahay barnaamijkayga intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waa anigoo ah Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Dekow kaamirada waxaa hayaa Nadiir Maxamed waa fikradii isku soo dabaridkii saaxiibkayga wariye Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad kulantii dambe oo xiiso leh caafimaad gurigiina ku joog aramada hogaamiso waxa uurka